Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaam saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa inaad wacan tihiin. Maanta waxaan insha Allah ka hadli doonaa cashir sidee loogu diyaariyaa exam report adoo isticmaalaya Microsoft Excel. Marka waxaan rajeynayaa cashiro aan Microsoft Excel-ka aan kaga soo hadalay interface-ka waxaas aan soo gelino waad arki kartiin, laakiin hadda cashirkan maxaa waaye sida exam-ka markaad imtixaanka ardayda kasoo qaadid aad isku dabaridaysid reportka final result si loogu diyaariyaa. Soo marka hore waxaan diyaarsanaynaa logadii iyo meesha ciwaanka iskuulkii magaciisa meesha lagu qorayay ayaan diyaarsanaynaa. We go to insert, then we go to shape, text box aan soo qaadanaynaa, intaan dhiganaynaa, waxaan ku qoraynaa marka iskuulka magaciisa. So let us say iskuulkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Somali Community College. Adee waxaa rabto waad iska qoran kartaa macnaha iskuulka magaciisa. So highlight aan dhahaynaa, control E aan dhahaynaa, marka center aan geynaynaa. So haddana intaan aan leenahay, haddana maxaan dhahaynaa academic year, waxaan dhahaynaa 2025 to 2026. Date-ka maanta aan qoraynaa iska dhahnaa March 10th, March 10th 2026. waxyaalaha kale aad ku soo raacana waad qoran kartaa sida iskuulka bio boxkiisa waxaas. So highlight aan dhahaynaa kuwan si fiican aan formatting u fiican u samaysano. Waan soo yarweynaysanaynaa, waan ka qaadaynaa. Haddii aad rabtid geeska geyn kartaa control L aan dhahaynaa, kana control L, kana sidoo kale control L. haddii rabtana meesha centerkaaga hadday ku yaalaan diyaar waayo. So haddaani maxaa ila qurxanaada control E aan dhahaynaa, ma centerka ila qurxanaada. So shape fill baan dhahaynaa, shape waxaan gashanaynaa qoraalka laga dhex arki karo, maybe kanaan iskaga dhaafsanaynaa. Intaa markaan diyaarsano ayaan waxaan sameynaynaa galaaska ilmihii magacooda ayaan qoranaynaa. Meesha maxaan dhahaynaa, halkan waxaan dhahaynaa subjects, halkan waxaan leenahay names aan dhahaynaa ama serial number aan ka bilaabaynaa. lambarka ardada lambar 1 2 3 waxa lagu qoray serial number. Then meesha maxaan leenahay names. Next maxaan dhahaynaa maadooyinka magacooda bilaabaynaa. maadooyinka magacooda waxaan dhahaynaa maadada xisaaba u soo horeysa aan iska dhahno math. Next waxaan dhahaynaa English. Next maxaan dhahaynaa geography. Next maxaan dhahaynaa history. Next maxaan dhahaynaa kuma badan ilaa 5 subject aan qaadanaynaa. 1 2 3 4 hal xabaa noo soo haray. halkaas maxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan Kiswahili aan iska dhahno. Okay, intaan marka ayagana highlight aan dhahaynaa, waxaan saaranaynaa borderline, all border aan dhahno. haddana waxaan saaraynaa ayagana shape fill baan dhahaynaa, ayagana waxaan saaraynaa okay kan camal aan saaraynaa bold aan dhahaynaa. Inkastoo marka hore aan rabo inaan ka dhigo ciwaanka, haddaad rabtid ciwaanadan capital uppercase waa ka dhigan kartaa. meesha marka waxaan ka dhigaynaa iyada total. Next maxaan ka dhigaynaa average ama mean, waa isku mid midka dhahdid average. Next maxaan ka dhigaynaa position. Sorry, haddii line-ka kaa galo Excel kala du kaa galo, cell kala du kaa galo, you just come here and then you double click. So you come, we are here, and then we click next tab ka adina, then we say position.
next waxaan aadaynaa result, and then last one waxaan dhahaynaa grading. Okay, halahan intaan waan iska delete garanaynaa intaas dhexda ku jirto linekaas. So we right click, delete, it's now rows waaye, so we click that, we delete that rows. Okay, intaan highlight aan dhahaynaa is the title, that one. So waxaan gelinaynaa color gooni aan iska saarno intaas. we see intaan kalanayno highlight aan dhahaynaa, isku badinayna ilaa intaas arday intaas 10 meelahaas aan iska qoranaynaa. So we go to, waxaan saaraynaa border, all borders aan saaranaynaa. So serial numberka aan gashano, number 1 2 3 4 automatic aan u buuxsanaynaa. Hadda marka intaan qabanaynaa aan soo jiidaynaa ilaa inta. So 13 students is enough. Okay, meeshaan marka magacaashaan qoranaynaa. Magacaashii maxaan ka dhigaynaa? Tusaale Maxamed, magacaasha magacaad iska qoranaysaa Maxamed Xasan Cabdi. Then we come here, we double click this line, ama haddii kale waan highlight garanaynaa. Then we click here, we double click first row, ama haddaad rabtid saas aan kula gelin kartaa. So meeshaan waxaan dhahaynaa Aisha Yusuf. Kan weli boldiga saaran, so boldiga aan ka qaadaynaa because markii hore aan highlight garaynayay title-kan ku daray rowskaas. So waan ka qaadaynaa isaga so ardaydan kale lama noqdo. Size-kan isku mid aan ka wada dhigaynaa. Waxaan isticmaalaynaa si aad u aragtiin 14kaas. Marka waxaan dhahaynaa Axmed Daahir Nuur Siraad Cabdi Xasan Nasra Maxamed Ibrahim Xaliima Cabdi Maryan Daahir Cabdullaahi Cabdi. Waxaan dhahaynaa Maymuna Maxamed, then Xaliima Maxamed iska dheh. Okay, dan waxaan dhahaynaa Zaytuun Ibrahim. Okay, markii saan magacaasha u qorno waxaan qoraynaa marka subject-kaan siinaynaa. Iska siin kartaa adii qof kasta max ma iska siin kartaa 2 max. Sorry, meeshaan average-kan kuma jirto, total-kaana kuma jirto. So intay ku egeen subject-da max-kooda. Okay, so subject-kan next. Okay, hadana kana sidoo kale, kana sidoo kale saasa u buuxinaysaa. Kan soo totalka waaye, kana sidoo kale ardaygaanasna siinayna. Sababtoo maxaa rabnaa data hadda waan ku shaqeynaa rabnaa aan ku sameyno totalka average position result aan ku sameyno. So waan buuxinaynaa. Okay, kana sidoo kale. Okay, tamam, too much asi hala ka bixinayna. Okay, next. Okay,
okay sorry okay waan buuxinaynaa subjectahan sifa kuwan kale hadhow ay nooga waxismaan waqtiga u beer dareynin intaana iska soo qaadanaa dana waan iska soo buuxinaynaa control v aan dhahaynaa marka okay totalka marka bilaabaynaa horta intaanan bilaabin totalka intaanan aan shift fill iska saarno kaalan iska gashano oo formula ay gala xagga formuladaas halka ay galay okay intaanan iska highlight garaysanayna datada inta kale waxaan ka ahayn heading aan ka ahayn then we go to shift fill I think this one is okay kan waa la arki karaa malena ciwaankaasna noocaas ka saarnaano waxaan soo weynaynaa totalka aadaynaa waxaan dhahnaa equal saamkaan iska dhacsanaynaa daarabno ayadoo equal lagu dhifanaan saamkaan iska aadi karnaa saamkan laakiin hadda equal saam baan iska dhahnaa then we add all that subject we close the bracket and then we enter and then we fill by dragging that small arrow so waan buuxinay waxaan aadaynaa averagekii okay 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 markaan soo dhamaysano averagekan aadaynaa average waxaan dhahnaa equal average and then we click that average we will click the first student first subject we don't add the total kuma darayno we cross the bracket and then press enter then we fill again that's the average sorry anigan kumana darin okay and then we go to positionka ayada maxaan dhahaynaa formulaga la isticmaalo positionka maxaa waaye maxaan dhahaynaa equal rank then we click this rank and then waxaan raadinaynaa the total because ardada positionka waxaa lagu siiya waxaa waaye the total max kan ugu maxka badan ayaa number 1 galaya so now we click the total of the first student and kala garanaynaa we say the comma and then we click again the first and then we drag down hoosaan u jiidaynaa and then we close the bracket markaan bracketka xirno intaa isku kaalaga oo 24gaas ilaa kdaas ayaan highlight garanaynaa commagaasna kuma daraysid and then waxaa qaraacaysaa f4 press garanaysaa f4 riixi si calaamada dollar saanka u fuusho enter dhiga marka inta markaan aadid haddana ayadana waan buuxinaynaa marka so hadda waxaan arkaynaa cunugii ugu maqsi badan ayaan number 1 galay number 1 raadinaynaa number 1 kana galay totalkiis maxaa waaye 700 oo meeshaana qalad ka imaaday waa bedelkan aan siin lahayn 2 digit aan waxaan siinay 4 digit markaan qaraacno so hadda maxaan dhahaynaa number 1 kaas soo laga qaadno meeshaan 34 aan isgelinaynaa so automatically meeshaan waa isbedelaysaa number 1 waa laga qaadaysaa ninkaana number 1 la wareega asagana waan fiirinaynaa waa Maryam Daahira number 1 gashay average ahaan ayada u badan
average ahaan ayadaa u badan average-ka marka la fiiriyo. Average maxaa waaye marka isku dardartid maxkan oo 5 student marka isku dartid then you divide by inta number u qad, because hadda waxa waaye waa 5 subject waaye waa 500 then divide by 5 adii, so average ku soo baxaya. Okay, marka saas laba qof lama isla qabsaday, waxaa isla qabsaday Aisha lamba 1 gashay, Maryan iyadana lamba 1 gashay, waa isku same marks waa kan muxuu keenay 438 out of 500 tan 438 out of 500, but automatically number 2 ka booda markii wax number 2 galay ma jirto, because laba qof isla qabsatay number 1 number 2 waa laga booday, number 3 na kana jiro. Hadda marka hadaan rabno gabdhaha inaan kala reebno mid baan max ka jirayna, gabadhan 86 gaysta ayaan waxaan saynaynaa 78 camal, so ayada number 2 ay imaanaysaa marka saas isku bedelo automatically. Result aadayna, resultiga formulageeda maxaa waaye iyada marka. Okay, resultigana waxaan ku raadinaynaa oo qofka inuu dhacay inuu baas sheegayso resultigaas. Waxaan dhahaynaa equal if taan gelina marka, so marka qofkan 5 subject soo qaatay 1 2 3 4 5, so marka maxaan dhahaynaa totalkiisa if maxaan dhahaynaa totalka qofkaas is greater than haddii ka weyn tahay or equal ama ay la mid tahay average marka meeshan waa 250, because qofka 500 laga rabay maadooyinka 100 buu keeni lahaa, marka average maxay noqonaysaa marka 250. marka waxaan leenahay 250 qofka hadduu 250 uu keeno ama ka badan koma quotation kan furaynaa baas aan dhahaynaa marka qofka uu baasaya, dan quotation ka xiraynaa, dan koma aan dhahaynaa, dan quotation kalaan furaynaa, fail aan dhahaynaa, dan waa xiraynaa. Okay, now again we close the bracket. This means if this person get more than 250 or exactly 250, he or she will pass. Haddii qofkan uu keeno 250 ka badan ama 200 uu baasi, haddii 200 ka hoos uu keenana uu dhici, sababtoo average 250 waa intaan dhahaynaa marka. So wixii average wixii totalkiis 250 ka yarayay waa arki doonaa, fail ay soo qori doontaa. So let us fill it. Dadkaasaan qabanayna dan waan jiidinaa hal mar aan buuxinaa bedelka hal aan samayn lahayn. So waan arkaynaa marka wixii keena 250 totalka waa kana ninkan 250 kan uu baasay, kan camal 244 uu keenay uu fail garoobay number 10 waaye, tan waa 12 isna total 250 uu keenay, marka sidaas waaye saasaa lagu xisaabaya. Marka wixii 250 ka hoos keenay way dhacayaan, wixii 250 ka kormarana way baasayaan. 250 maxaa u dhahaynaa maxaa waaye 5 maado marka laba loo qeybay average-ka laga rabo qofka isku celis average-ka waxaa la waaye waa 250. grade ina noo soo haray, grade marka maxaa qofka A B wuxuu helayo si waxay tahay ayadana marka waxaa lagu kala goray waxaan leenahay equal if maxaan leenahay marka average-ka xisaabayna marka if this average if hadii noo soo baxday we open the bracket, marka average kan ka bilaabayna haddii average kan uu ka weyn yahay ama la mid yahay 90, qofkaas hadduu 90 keeno ama waa ma yareynayna si ardada aad u akhristaan average-ka maxaa waa loo badinayaa, qofka haddii hadduu 90 keeno B baan siinaynaa. Marka hadda waxaan ka bilaabaynaa ama 90 iska dheh comma we open the quotation then we close it. So qofkan comma again, qofkan marka macnaheedu maxaa waaye haddii uu keeno average-kiisaas 90 ka bato, average-ka kan hadduu 90 ka bato ama 90 ay noqoto waa la siin. haddana waxaan leenahay if tan isticmaalayna K12 this one I mean L12 hadday ka weyn tahay ama la mid tahay 80 comma quotation for B waa hadda gelinaynaa
comma haddana if use this if tan weli isticmaalaynaa tan haddana weli isticmaalaynaa haddii l 12 oo average-ka ay ka weyn tahay ama la mid tahay hadda waxaan isticmaalaynaa 80 comma haddaan furaynaa quotationkii b c aan maraynaa marka haddana soo xir haddana comma if L12 is greater than or equal to 70 comma quotation abc. So marka meeshan 70gan waxaan ka dhignaa iska soo waqtigaas ka waxaynaynaa waxaan ka dhigaynaa 50. So qofkii 50 hela isaga saas waaye comma. So waxaan dhahaynaa d quotation soo xir. So markaan saanano how many s meeshan ku jiro, I mean how many if 1 2 3 4 4 so we close the bracket in 4 times 1 2 3 4 then we press enter. So qofkii waxa la qofkii kale oo arkaynaa then we say list tan hadda false wuxuu soo qoraa maxaa waaye ayaga maanaan ku darin because 50 aan ku joojinay dadkaana less than 50 bay heleen. So haddii aan ku darno haddaan ku sii darno halkan aan ku daraynaa meeshan 50 60 iska dheh ama 70 aan maraynaba halkan marka dana if aan dhahaynaa this one lk is greater than or equal to 60 comma quotation abcd aan sinayna kuwaan marka iyaga quotation for bracket-ki halka xabaan ku daraynaa maadaama if kale aan ku darno. So intan aan dhahay okay meeshaasaan comma ka hilmaanay. So inta haddaan soo jiidana marka okay hadda iyo hadaan because maxaan dhahnay average-kooda 60 buu ka wada yar yahay. So hadda waan bedelaynaa meeshan 80 meeshan 90ga average iskuulka hoos aan u dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa 80 meeshan waxaan ka dhigaynaa 90 meeshan waxaan ka dhigaynaa 87 aan ka dhigaynaa ama 60 ka dhig meeshan 60 haya meesha waxaan ka dhigaynaa 50 kana waxaan ka dhigaynaa 60 ama 40 haya kana waxaan ka dhigaynaa 40 sama 30 haya tan waxaan ka dhigaynaa 20 haya intaan dhahaynaa. So haddaan soo arkaynaa ma hadda wada baasayaan because average-koodan hoos usoo dhigna marka hore 90 aan ku suuxaynay qofkii 90 keena ee keenan dhahnay hadda waa usoo yareen waxaan dhahnay qofkii 60 keeno ee ha keenan dhahnay qofkii 40 keeno marka hadda average-ka hoos aan ugu dhignay si ay u baasaan. Marka sidaan ayaa ku samaysan kartaa class examination report waa hadda kaamil. haddaan hadda ardadan wax ka bedelno tusaale ahaan haddaan ka bedelno markskan mid ka mid ah ardadan waxa dhan uu isbedeli macal eegaysi gareerkiisi baaskiisi resultiga position waa isbedelaya. Tusaale ahaan meeshan 98 ka waxaan dhigaynaa 10 iska gala meesha camal marka hadda fiirso waxa isbedelayaan meesha hadda fail uu noqdo ninkan
46 uu noqday average-kiisii. Position 11 uu imaaday marka hore muxuu ahaa position kale u ahaa. Hadda meeshan position haddaan geliyo tusaale ahaan 78 isbedelaya wuu soo baasay, average kor u kacay, sidaas isku xirnaanay. Marka next time waxaan aadi doonaa maximum, minimum by subject iyo by student si ay u sameeyaan. Waa inuu wada salaamayaa.